khubarada cilmiga dhulka ee waddanka Masar ayaa shaaca ka qaaday qabri noociisu uu dhif iyo naadir yahay oo aan la taaban muddo 4400 oo sano ah. Mustafa Wasiiri oo ah xoghayaha golaha sare ee dhowrista taariikhda dadkii hore ayaa helitaanka qabrigan ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa ee la ogaaday 10 sano ee la soo dhaafay. qabrigan oo sida loo sameeyay ay aad cajiib u tahay ayaa waxaa laga helay ahraamta Saqara ee u dhow magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. waxaa ka buuxay sawir gacmeedyo midabo kala duwan leh iyo weliba taalooyin muujinaya qaar ka mid ah faraaciintii waddanka Masar. waxyaabaha lagu xardhay hareeraha qabrigan ayaa lagu muujiyay qofka ku aasan, kaasoo ah baadari ka tirsanaa boqortooyadii xilligaasi ka talinaysay waddankaasi Masar, waxaana baadarigaas lagu magacaabi jiray Waate. sidoo kale waxaa halkaasi lagu arkay sawirrada laga sameeyay hooyadii iyo xaaskiisa iyo qaraabadiisa kale. khubarada ayaa qodista qabrigan bilaabi doona 16 bishan Disembar oo maanta ku beegan, waxayna filayaan in la helo waxyaabo dheeraad ah oo horseedi kara taariikh kale. waxyaabaha la rajaynayo in la helo waxaa ka mid ah naxashka dhagaxa ka samaysan ee uu ku jiro meydka ninkaasi hore uga talin jiray waddankaasi Masar. Siciid, Axmed, tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.